وإن سلام الأمان أصحابتك حيران جنة الكيجا وحرجنا إنا كل راح يستين دعوة برنامج كان قروح ذا بدن صوبنا نحريس إن بتقوليه دوشيسا ها آتة ها إلابين إن أت سبسكرايب سارتيد جنبلال كان أتابستيد thank you. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انت كدب كسر هذا ولا البرنامج كان يسوبناها قيبتي سي شناد waxaanu ku guda jirnay ka sheekeynta akhlaaqda quruxda baneed ee suubanuhu u lahaa salaatu rabbi wa salaam alayhi. qaybtan waxaan ku qaadal dhigi doonaa sheeko ka dhexdhacday suubanaha salaatu rabbi wa salaam alayhi, nabigii ummadan, rasuulkii ummadan, sayyidkii anbiyada iyo mursaliinta, insaankii ugu horeeyay ee Ilaahay uu cimrigiisa ku dhaartay markii uu la hadlayay oo uu wacayene aanan ugu yeerin magaciisi halka anbiyada kale oo ugu wacay magacooda yaa Yaxya, yaa Ciisa, yaa Muusa, halka nabiga loogu wacay yaa ayuha nabiyu, yaa ayuha rasuulu. sheeko ka dhexdhacday nabigaas naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee irka loo qaaday samada iyo wiil yar oo faqiir ah oo magaciisa la yiraahdo Jaabir, Allah ka raali noqday. sheekadan waa sheekadii saxaabigii jaliilka ahay ee dhalinyarada ahay ee aabihii uu ku shahiiday duulaankii Uhud, kadibna nabiga la baxay duulaan la oran jiray ghazwatu daatur riqaa, duulaankii daatur riqaa. Jaabir, Allah ka raali noqday, asaga ayaa sheekada ka sheekeynaya oo wuxuu leeyahay suubanaha ayaa waxaan u raacay duulaankii daatur riqaa, waxaan gaadiid ahaan u watay geel aad u tabar yar. duulaankii markaan ka soo laabanay ee wadadeena aan ku soo jirnay baa waxa ugu dhacday in gaadiidkii oo idil ay iga dheereeyeen oo iga tageen. anigana waxaan noqday qofka ugu dambeeyay ee gadaal ugu jiray socodkayga aad u gaabnaay, maxaa yeelay gaadiidka geela aan gaadiid ahaan ka u wataa socodkiisu aad u gaabnaay. kadib baa suubanaha salaatu rabbi wa salaamu alayhi iyo ogaaday in aan dadka ka dambeeyo. wuxuu ahaa salaatu rabbi wa salaamu alayhi mid ciidanka kontaroolo oo gadaal iyo horeyba ka mara oo soo ogaado qofka wax ka qaldan yihiin midkooda caawinaada u baahan kaanahu ab. wuxuu u ahaa qaa'id, hogaamiye, nabi, rasuul iyo hogaamiye intaba uu u wada ahay suubanaha salaatu rabbi wa salaamu alayhi, sayyiduhum wa qaa'iduhum. markii uu suubanaha salaatu rabbi wa salaamu alayhi arkay buu wuxuu ugu yiri maa laka yaa Jaabir, maxaa ku helay Jaabirow? u fiirso, Jaabirow magaciisi ayuu ugu wacayaa suubanaha salaatu rabbi wa salaamu alayhi. dadka markaad ihtimaam u heedid oo agtaadu ay qiimo iyo sharaf ku leeyihiin ayaa magacyadooda xifdinaysaa. assalaam, maxaa ku helay Jaabirow? waxa uu leeyahay Jaabir waxa ku yiri yaa rasuulallah, geeleygii baa dhaqaaqi la oo socon la. markaas buu suubanaha naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee ugu yiri maad yara karbaashid. kadib buu iga dalbaday in aan siiyo ul yar oo aan wato geela ku yara xanjafinayo ku hogaaminayay. kadib buu 2 iyo 3 ku dhuftay ul naxariis ku dhahantaho, yani geela in yara dhaqaaqa un laga rabo. riwaayooyinka qaar waxay sheegayaan in suubanaha salaatu rabbi wa salaamu alayhi u duceeyay neefka geela. kadib Jaabir wuxuu leeyahay suubanaha wuxuu ugu yiri kar oo wado. فوالله إله بان كدارتay geelaygu wuxuu noqday mid kii suubanaha salaatu rabbi salaam alayhi la tartamo oo garb socdo. Jaabir wuxuu leeyahay suubanaha salaatu rabbi salaam alayhi oo la shakaso waqti ila qaatay oo wuxuu ugu yiri yaa Jaabir ma diga iisanaysaa geelaagan? Jaabir wuxuu leeyahay waxaan ku yiri yaa rasuulallah bal ahibuhu lak waan ku hibeynaya. markaas wuxuu leeyahay may ha ii hibeynin ee iibso. kadib Jaabir wuxuu leeyahay waxaan ku yiri haye meeqad iga iibsanaysaa? wuxuu ugu yiri suubanaha waxa kaaga iibsanayaa dirham, hal dirham.
yaa rasuulallah maad khasaarinaysa sawiro sayyidul zaciimuhum qaa'iduhum hogaamiyihii ciidankooda nabigii sayidkii ambiyada iyo mursaliinta wuxuu la kaftamayaa oo la sheekaysanayaa oo waqti la qaadanayaa wiilka aadka u da'da yar ee even aan 20 xitaa gaarin jaabir wuxuu leeyahay markaas baa ku iri yaa rasuulallah dirham waa yarta kadib ugu yiri waayahay 2 dirham ka war waxa ku iri may yaa rasuulallah suubanaha salawaatu rabbi wa salaamu alayhi muusan ka suulin inuu qiimaha kor u qaado oo badiyo ilaa uu soo gaaray qiimo mablaq u dhigmo neefka qiimihiisa jaabir wuxuu leeyahay markaas kadib baa ku iri nacam yaa rasuulallah radiit waan raali noqdo yani waan ka iibsaday raali baan ku noqday radiit ma raali noqotay nacam uu leeyahay jaabir haa yaa rasuulallah waan raali noqday kadib uu jaabir wuxuu leeyahay rasuulka sheekadii buu ugu sii wadaa waa sheekaysanayna waqtiga qaadanayna wuxuu ugu yiri yaa jaabir maad guursatay ila fiiri waa nabigi ummadan suubanaha naxariis iyo nabadgelyo dushiisa aate naxariista ku dheehan dadka qalbiyadooda sida uu saameynayo wiilka yar hawlihiisa iyo inuu caafimaad qaba iyo ahwaashiisa iyo familkiisa inuu guursaday inuu guursanin iyo stable inuu noloshiisa ku yahay in kale iyo buu ka wareysanayaa de qofka ku wareysanayaa xawaashaada ku weydiinayna waa qof ihtimaam ku hayo suubanaha wuxuu aamid aabe u ah oo naxariistiisu ay wada deeqdo kuwa agtiisa jooga oo idil jaabir wuxuu leeyahay yaa rasuulallah haa waan guursaday kadib wuxuu weydiinayaa ma waxaad guursatay gabar mase garoob kadib wuxuu leeyahay jaabir waxaan ku dhahay yaa rasuulallah garoob baan guursaday markaas wuxuu ugu leeyahay maxaadan u guursan bikran tulaacibuha wa tulaacibu gabar yaro bikraaho aad isla ciyaartaan oo adna la ciyaarto iyana kula ciyaarto kadib wuxuu leeyahay waxaan ku yiri yaa rasuulallah aabeygu wuxuu ku shahiiday duulaankii Uhud wuxuuna iga tagay hablo 7 waxaan doonay oo rabooday inaan guursado haweeneyda ah oo hooyo u noqoto oo tarbiyayso mas'uul ka noqoto gurigaas ricaayadooda iyo hawlahoodii idin kadib uu ku yiri suubanaha waad asiibtay barakallahu fiik allah ku barakeeyo yani sheekadu aad bay u dheer tahay waqti badan way qaadanaysaa waxaan ka soo qaadanaynaa qaybo yar yar even suubanaha iyo jaabir wasi sheekaysanayaan waqtiga si qaadanayaan wuxuu leeyahay ya jaabir siba u degdegsantay maxaa ku hel markaas buu jaabir wuxuu ku leeyahay yaa rasuulallah aroos cusub cudub guraan ahay haddaan urusay xaaskayga gurigayga oo hamuun qabaa yani oo kaftamayaan oo sheekaysanayaan waqtiga wada qaadanayaan jaabir radiyallahu anhu wuxuu leeyahay gurigii markaan ku soo laabtay xaaskayga wixii ugu horeeyay aan u sheegay waxay ahaayeen in aniga iyo suubanaha intaas aan waqti soo wada qaadanay soo sheekaysanay geeleygi aan ka iibsaday neefkii geela aan haysanay aan ka iibsaday suubanaha salaatu rabbi salaam alayhi geeley daciifka ay tabartayra in suubanaha iga iibsado even xitaa in suubanaha salaatu rabbi salaam alayhi qoyskeena iyo reerkeena u duceeyo oo yiri Allah isku in barakeeyo labadiinan يا سلام يا سلام ما واحد وقرح بدن النبي صلوات ربي وسلام عليه انت اسات اسلا شكيستين وقتigaas isla qaadateen ku duceeyay jaabir wuxuu leeyahay markii waagi ii bariyay geeli hogaankiisa soo qabtay oo waxaan imaaday oo la kaalayay gurigiisa suubanaha salaatu rabbi wa salaam alayhi masjidkiisa suubanaha agtiisan ku xiray waana fariiso meel u dhow anigu sugayo suubanaha naxariis nabadgeliye dushiisa aatay ugu dambeyn uu imaado suubanaha naxariis nabadgeliyo dushiisa aatay wuxuuna arkay neefkii geela wuxuu ku yiri waa maxay neefkan geela waxay kadib baa lagu yiri yaa rasuulallah geelan waxa keenay oo la kaalayay jaabir radiyallahu anhu kadib buu dalbaday in loogu waca oo u kaalayo jaabir wuu imaaday oo suubanahu u imaaday markii loo wacay kadib wuxuu ku yiri taal ibna akhi kaalay wiilka walaalkaygo inankaygiyo hadal jileecsan naxariis ku dheehan tahay qalbi soo jiidasho leh intee saameyn ayuu qalbigaaga ku yeelan lahaa hadii saas qofku la dhaqmo ka weyn hogaamiyii ciidankii iyo wixii nabigii suubanaha rasuulkii hogaamiyii wixii idil bixina intaas hadoo kula dhaqmo qalbigaaga saameyn intee leeg ayuu ku yeelan lahaa jaabir radiyallahu anhu wuxuu leeyahay suubanaha wuxuu ugu yiri orod geelaagan wado kadibna wuxuu u wacay bilaal oo wuxuu ku yiri yaa bilaal jaabir wad oo waxaad siisaa hanti qiimo lacag ah oo u dhiganto neefkiisa geela
neefka waxaa wadanaya oo qaadanaya Jaabir hanti iyo qiimo u dhiganta neefkaasna waxaa qaadanaya Jaabir radiyallahu anhu ya salaam Jaabir wuxuu leeyahay waxaan soo raacay Bilaal oo waxa uu soo siiyay lacag qiimaheedu u yahay oo u dhiganta neefkayga inta uu joogo wax yarna uu ugu daray Jaabir wuxuu leeyahay fa wallahi ilaah baan ku dhaartay maalkaas ilaa iyo haddeertan uu tarmaya oo gurigeeniyo ka muuqda waanu haysanaa taas ay eed akhlaaqdii quruxda badneed ee nabigeena kariimka ah uu lahay salaatu rabbi wa salaamu alayhi hadii aynan ooga daysan hadii aynan ihtimaam siinin dadka agteena joogo hadii aynan hamiga muslimiinta xambaarin hadii aynan hambalnimo iyo tawaaducnimo aanan la imaanin si kasta oo aan u weynahay hadii aanan muslimiinta kan ugu faqiirsan aanan u arkin kan ugu daayar inuu yahay walaalkeen xuquuqna uu nagu leeyahay dhaxdeena hadii uusan xiriir jirin tacaawun iyo iskaalmeys jirin isgarab istaag jirin maynan ku dayan subanaha salaatu rabbi wa salaamuhu alayhi وإن سلام الأمان أصحابتك حيران جنال كيغا وحرجنا إنا كل راحتين دعوشة برنامج كان قروح ذا بدن صوبنا نحريس إنا بتقليو دوشيسا ها آتاء ها إلابين إن أت سبسكرايب سارتيد جنبالال كان أت تابستيد Thank you